Bisadii yarayd. Markii ay bisadii yarayd hiliblihii hor timi, iyada oo rajaynaysa inuu u soo tuuro hilib yar oo ay cunto. Maajid ayaa imi, bisadii yaraydna qabtay, isagoo iskugu yeedhaya saaxiibadii oo leh, qurux badanaa bisadu, aynu la ciyaarnay kaalaya. Carruurtii bisadii ayay ku soo urureen, mid kastana gacanta wuxuu ku sitaa qori uu ku riixayo bisadda. Bisadii way isku dayaysaa inay baxsato, Maajidna wuu soo qabanayaa, marna madaxa isagoo ka haya, marna dibka uu ku soo celinayo dhexdoodii. Carruurta kalena waxay ahaayeen kuwo ku qosqoslaya marka ay bisaddu cararayso. Mar walbay bisaddu cararto, Maajidna aanu ka daalayn inuu dib u soo celiyo. Way u sacabtumayaan Maajid iyo saaxiibadii ma dareensana dhibaatada ay ku hayaan bisadda yar. Nin ayaa soo maray waddadii oo arkay dhibaatada lagu hayo bisadda yar iyo waxa ay carruurtu ku samaynayaan, wuxuuna ku yidhi, waxan aad samaynaysaan ma wanaagsana, wax bannaanna maaha. Xayawaanka oo la dhibaateeyana Ilaahay wuu inagu xisaabinayaa, waanu inagu ciqaabayaa. Qof idinka mida oo jecel in la ciqaabo sida uu bisadda yar u ciqaabayo ma idinku jiraa? Maajid wuxuu ka xumaaday wuxuu ku sameeyey bisadda, waxaana u doonay hilibkii yaraa ee uu hilibluhu siiyey, isagoo bisadii yarayd hor dhigay si ay u cunto. Bisadiina markay dhammaysay hilibkeedii yaraa, way iska tagtay iyadoon dhibaato dambe loo geysanin. Carruurey, sheekadan waxaynu ka baranaynaa in aanay bannaanayn in xayawaanka la dhibaateeyo. Xayawaanku naf ayuu leeyahay sidaad adiguba naf u leedahay. Inaad u naxdo oo dhibaatada ka dayso ayaa wanaagsan. Carruurey, qofka naxariista badan Ilaahayna wuu u naxariistaa. Aynu u naxariisano xayawaanka, dhibaatadana aynu ka dayno.